asalaamu calaykum saaxiibayaal waa wiilkiinii Bakeeri Films. Ka hor inta aanan bilaabin waxaan sharaxi doonaa filim Maraykan ah oo iskugu jira jacayl iyo khiyaal laguna magacaabo Beauty and the Beast. Marka subscribe saara channelka muuqaalkana like taabta si uu gaaro dad badan. Filimkeena wuxuu ku bilaabanayaa meel ka mid ah Faransiiska. Amir dhalinyaro ah oo qurux badan ayaa ku noolaa qasri qurxoon oo raaxo leh. Si kastaba ha ahaatee, Amirka wuxuu ahaa mid isjecel oo aan naxariis lahayn, inkasta oo uu haystay wax kasta oo qalbigiisu rabo. Wuxuu sidoo kale cashuur ka qaadi jiray tuulada si uu qasrigiisa ugu buuxiyo agabka ugu quruxda habeen qura islaan duq ah oo dawarsato ah ayaa timid qasriga xilli qoobka ciyaar jiro, waxayna Amirka u soo bandhigtay ubax si uu u siiyo duufaanta. Amirka oo arkay muuqaalkeeda wuu ku jeesjeesay, dalabkeediina wuu diiday. Isla markaas islaantii duqda ahayd waxay si tartiib ah u muujisay muuqaalkeedii dhabta ahaa oo ahaa sixiroole qurux badan. Amirka wuxuu codsaday cafis, laakiin sixirooladu waxay aragtay inuusan jirin jacayl qalbigiisa ku jira. Sidaa darteed waxay u beddeshay bahal fool xun, adeegayaashiisuna waxay u beddeleen agabka guriga. Waxay sidoo kale masaxday xusuusta Amirka iyo adeegayaasha ehelkoodii iyo dadkii tuulada u dhow. Sixirooluhu waxay uga digtay Amirka in habaarku goydoono oo keliya haddii uu qof kale jeclaado, qofkaasna uu soo jeclaado ka hor inta uusan dhicin caleenta ugu dambaysa ee ubaxa sixran. Haddii kale wuxuu ahaan doonaa bahal weligiis, adeegayaashiisuna waxay noqon doonaan gab aan noolayn. 10 sano kadib, tuulo yar oo qasriga u dhow, gabadh dhalinyaro ah oo la yidhaahdo Bella ayaa ku riyoonaysa inay mar ka tagto tuulada, waxayna rabtaa inay ku noolaato magaalo weyn. Hal waa gabadh jecel buugaagta, waana gabadha farshaxan-yaqaan carmal ah oo la yidhaahdo Mowric. Si kastaba ha ahaatee, dadka kale ee tuulada ayaa had iyo jeer ku eegaya muuqaal yaab leh sababtoo ah qaabkeeda fikirka ee aan caadiga ahayn. Dhanka kale, ugaadhsada isla weyn oo halgamaad dagaal ahaa oo la yidhaahdo Gaston ayaa damacsan inuu guursado Bella sababtoo ah waa gabadha ugu quruxda badan tuulada. Markii Bella u keento ubax iyada oo aan ka fikirin ayay diidaysaa hadiyadda, laakiin tani waxay sii kordhinaysaa xiisaha Gaston ee iyada. Markay guriga yimaado, Bella waxay aabaheed weydiisataa inay tahay qof yaab leh iyo in kale. Mowric wuxuu ugu jawaabayaa in mar uu Baris joogay uu garanayay gabadh Bella oo kale ah oo ka horreysay wakhtigeeda. Dadku way ku jeesjeesi jireen ilaa maalinkii ay dhammaantood isku arkeen iyagoo ku dayanaya. Mowric wuxuu ugu dambayntii shaaca ka qaadayaa in gabadhaas ay ahayd Bella hooyadeed. Duhurkii, Mowric wuxuu u diyaar garoobayaa safar uu u baxayo suuqa. Bella waxay aabaheed ka codsanaysaa inuu u keeno ubax roos ah, kaas oo ay had iyo jeer weydiisato sanad kasta. Gaston ayaa mar kale yimaada guriga Bella si uu isku dayo nasiibkiisa, laakiin had iyo jeer way iska weecisaa isaga maadaama uusan ahayn nooca nin ee ay rabto inay guursato. Habeenkii, duufaan roob ah ayaa hadhaysay keynta. Mowric wuxuu ogaaday in jidkiisii uu xidhay laangeed oo hilaacu ku dhacay. Wuxuu qaadayaa waddo kale, laakiin koox yey ah ayaa bilaabay inay eryadaan. Intii uu baxsanayay, gaadhigiisii faraska ayaa ka furmay. Mowricna wuxuu ku dhacay dhulka. Isagoo isku dayaya inuu ka baxsado yeyda, wuxuu ugu dambayn gaadhay bahalka. Mowric wuxuu go'aansaday inuu halkaas hoy ka dhigo, wuxuuna isku kululeynayaa dabka hortiisa. Wuxuu galayaa qolka cuntada isagoo raadinaya cid joogta, laakiin wuxuu miiska ku dhex arkayaa koob hadlaya. Isagoo garowsaday in qasrigan wax kasi yihiin, ayuu si degdeg ah uga baxaya. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu beerta ku dhex arkaa ubaxyo roses ah oo baxaya, wuxuuna go'aansaday inuu mid u soo gooyo gabadhiisa. Markii bahalkii ayaa hortiisa ka soo muuqanaya, Mowric faraskiisiina waa cararaya. Markii faraskii Mowric uu soo laabtay isagoo cidna sidin, Belle waxay ogaatay in wax qaldan yihiin, waxayna u baxaysaa inay raadiso aabaheed. Waxay gelaysaa qasrigii, waxayna ugu dambayn helaysaa aabaheed oo ku xidhan godka qasriga. Mowric wuxuu u sheegayaa gabadhiisa in qasrigani uu nool yahay, wuxuuna amar ku siinayaa inay si degdeg ah uga baxdo. Wax yar kadib, bahalkii ayaa soo muuqanaya, wuxuuna sheegayaa inuu xidhay Mowric sababtoo ah wuxuu beertiisa ka xaday ubax. Belle waxay u sheegaysaa in iyadu ubaxa rabtay, waxayna ka baryaysaa bahalka inuu gasho booska aabaheed. Inkasta oo Mowric uu diiday, Belle waxay ku qiyaamaysaa inay macsalaamayso, waxayna isku xidhaysaa albaabka gudaha. Bahalkii wuxuu ka xaysanayaa Mowric, wuuna sii daynayaa. Dhowr saacadood kadib, albaabkii godka ayaa furmay. Bellana waxay la kulaysaa adeegayaashii qasriga ee u beddelmay agabka guriga. Lumiere lambad sida ayaa u horseedaya qolkeeda cusub. Waxaa ku soo biiraya Oxford saacadda weyn. Bella waxay la kulaysaa Blumette baaltirtire oo isla markiiba qolkeedii boodhka ka sifeeyey. Lumiere iyo Blumette waxay ahaayeen lamaane ka hor habaarka. Sidoo kale, kabadhkii dharka Madame de Garderobe ayaa bilaabaya inay heesto. Dhanka kale, Mowric wuxuu gaadhayaa tuulada, wuxuuna u sheegayaa wax walba oo ku saabsan bahalka. Dadka oo dhan waxay u malaynayaan inuu waalan yahay, markaasna reebo Gaston oo raba inuu fursad u isticmaalo si uu Bella u guursado. Waxay gelayaan keynta, laakiin Mowric ma heli karo jidkii saxda ahaa sababtoo ah jidka ayaa sixir ahaan isbedelay. Gaston ayaa cadhooday, wuxuuna Mowric kaga tegayaa keynta dhexdeeda si yeydu u cunto kadib markii Mowric uu diiday inuu gabadhiisa siiyo. Qasriga dhexdiisa, bahalkii ayaa cadhooday markii uu maqlay in Bella laga soo saaray godkii. Lumiere ayaa ku qancinaya bahalka inuu si naxariis leh Bella ugu yeedho, waayo gabadhani waxay noqon kartaa midda habaarka ka jebisa. Bella waxay diidaysaa inay casho la cunto qofkii afduubay. Bahalkii ayaa cadhooday, wuxuuna leeyahay cunto dambe la siin maayo. Wuxuu isticmaalaa muraayadiisa sixirka ah si uu u daawado Bella. Miss Potts, Kikli Shah iyo wiilkeeda Jacob Shah ayaa u yimaada Bella. Waxay ka raaligelinayaan dabeecadda bahalka. Bellana waxay ogolaanaysaa inay wax cunto. Adeegayaashii waxay u dhigayaan bandhig cajiib ah. Cashada kadib, Bella waxay gelaysaa qaybta mamnuuca ah ee qasriga, waxayna heshaa ubaxii sixirnaa. Bahalkii ayaa si naxdin leh
leh uga soo dhex baxaya Bellana iyadoo argagaxsan ayay qasriga ka cararaysaa keynta dhexdeeda Yey ayaa ku hareeraysan Bella laakiin bahalkii ayaa usoo gurmaday oo badbaadiyey isagoo dhaawacmay Bella waxay dib ugu celisay qasriga waxayna daryeelaysaa dhaawacyadiisa Miss Potts waxay u sharaxaysaa Bella in bahalku uu ahaa wiil dabeecad wanaagsan laakiin aabihiis oo naxariis darnaa uu u bedelay qof isaga oo kale ah markii hooyadiis dhimatay maalmihii xigay Bella iyo bahalku way isku soo dhowaanayaan wuxuu tusayaa maktabadda weyn ee qasriga iyo buug sixir ah oo qofka u rari kara meesha uu rabo Bella waxay isticmaashaa buugga si ay u booqato gurigii yaraanteeda ee Paris halkaas waxay ku ogaatay in hooyadeed ay u dhimatay cudurka Plague aabaheedna uu ka soo kaxaysay halkaas si uu u badbaadiyo Maurike wuxuu badbaadisay Agathe oo ah gabadh keligeed nool wuxuu ku laabanaa tuulada wuxuuna dadka u sheegaa dembigii Gaston ayaa ku qancinaya dadkii in Maurike uu waalan yahay wuxuuna u dirayaa rugta dadka waalan qasrigii adeegayaashu waxay u diyaarinayaan bahalka qoobka ciyaar Bellana sidoo kale waxaa loo diyaariyey dhar qurxoon labadoodu waxay wada samaynayaan dheeshii jacaylka Bella waxay sheegaysaa inay u xiistay aabaheed bahalkii wuxuu siinayaa muraayadii sixirka ahayd waxayna ku dhex aragtaa aabaheed oo dhib ku jira bahalkii wuxuu go'aansaday inuu sii daayo Bella si ay aabaheed u badbaadiso isagoo u hadiyeeyey muraayadda adeegayaashii waxay lumiyeen rajadii laakiin way fahmeen go'aanka mastaarkooda sababtoo ah ugu dambayn uu jeclaaday gabadha Bella markay tuulada gaadhay waxay dadka muraayadii ku tustay bahalkii si ay u caddeeyo in aabaheed uusan waalayn Gaston oo masayray ayaa yidhi Belle waa la sixray wuxuuna iyada iyo aabaheedba ku xidhay gaadhigii dadka waalan Gaston wuxuu kiciyey dadkii tuulada si ay qasriga u weeraraan Belle iyo aabaheed waxay ku guulaysteen inay ka baxsadaan xabsigii waxayna u carareen dhanka qasriga adeegayaashii qasriga ayaa iska difaacaya dadkii tuulada ee soo weeraray dagaal weyn kadib dadkii tuulada waa laga adkaaday Gaston wuxuu kor ugu tagay bahalkii kaas oo aad u murugaysan oo aan rabin inuu dagaalamo Gaston ayaa xagga dambe ka toogtay laakiin markii uu bahalku arkay Belle oo soo laabatay ayuu helay geesinimo uu isku difaaco bahalkii wuxuu u tuuray nolosha Gaston laakiin Gaston ayaa mar kale toogtay isaga oo ku taagan buundo daciif ah buundadii ayaa duntay Gastonna wuu dhintay bahalkiina wuxuu dhintay isla markii ay caleentii u dambaysay dhacday adeegayaashii oo dhanna waxay noqdeen agab aan noolayn Belle oo ooyeysa ayaa u sheegtay inay jeceshahay Agathe ayaa muujisay inay tahay sixiroolihii waxayna jebisay habaarkii bahalkii wuxuu dib u noqday bini'aadam adeegayaashiina sidoo kale dadkii tuulada waxay dib u heleen xusuustoodii filimku wuxuu ku dhammaanayaa Belle iyo amiirkii oo qasriga ku dhex dhigaya xaflad weyn iyagoo ku noolaaday farxad weli saaxiibayaal like saara muuqaalka subscribe-na na soo dhaha si ay muuqaladeenna ni soo gaar